deeqdan la gaarsiiyay degmada Tawfiiq ee ka tirsan gobolka Mudug ayaa isugu jirtay lacag gaaraysa $5,000 oo lagu wareejiyay gudoomiyaha degmada, deeq caafimaad, deeq raashin iyo waliba sidoo kale deeq biyo dhaamisa. Mas'uuliyiinta halkaasi deeqdan gaarsiiyay waxay ka koobnaayeen xubno ka socda maamulka gobolka Mudug, xubno ka socda wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, xubno ka socda wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda Puntland iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. degmada Tawfiiq ayaa dhawaanahan waxa ka jiray biyalaan xoogan taasoo cabasho ay ka soo muujeen dadka ku dhaqan deegaankaasi. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Mudug Madax Axmed Muuse Nuur Yar oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xaaladdu haddii ay ka sii darto ay wada socon doonaan dadka deegaanka. Ilaahay waxaan ka baryaynaa isagaa wax bixin kara ama dadka waraabin kara inuu soo waraabto. Waan Ilaahay ka baryaynaa. Haddii waqtigu sii xumaado waynu wada soconaynaa soo jidku xun yahay. وإنه وضع صعوننا هجالة لكن هذا أنت عن وضنه خرج كذا وحنا ربنا هجالة إنه مثلا يكون يشمل إن مالها اللي سيسان فحنا أقولني برلمان هنا وإن لك شو جا وغير دان تلفت جذا وكل حاجة أنا بلا ريبة مدخلينه هو ولا شيء هاي gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. waxaanu idinku nimid oo ugu weyn arintan ku saabsan biyo la'aanta iyo abaarta dhacday oo dad iyo xoolaba saameeyay in aanu waxa weeye aanu qayladaan meel walba la gaadhnay waxa weeye waa wasiir dawladda arrimaha gudaha waa jooga wasaaradda arrimaha gudaha waa gaarsiinay qayladaan bay samaysay hay'adihii oo dhan bay isugu yeertay waxa weeye inay meeshan iyo meelo la mid ah oo uu kulayl badan qabtay inay jirto sidoo kale madaxweynaha Puntland waxaan ka codsaday in gargaar degdeg ah lala gaaro ilaahay baa wax gargaari kara waxa weeye umadana qaboojin kara laakiinse waxa weeye isaguna wixii degdegta ahaa oo aanu idin soo gaarsiino ilaahay waa ka keenay aad buu ugu mahadsan yahay mas'uuliyadaas gaarka ah ee uu isa saaray waxaana doonayaa qofka oo mas'uulka ah iyo mas'uuliyiinta wax lagu wareejiyo inay meel fagaara ah oo ilaahay iyo umadiisuba ay taagan tahay ay wixii amaanada ah ku wareejiso waxaan waa $5,000 weeye waa taasa waxa weeye 5,000 ayaan maamulkiina ku wareejinaynaa si biyo dhaamis loogu sameeyo. qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug ayaa ka mahad celiyay deeqdan ka timid dowladda dhexe Puntland iyo waliba cid ka soo gacan ku lahayd. waxay noo keeneen deegaanka Tawfiiq markaan nahay wax biyo ay u tala galeen dadka u dhow deegaanka oo dadka masaakiinta oo liita in lagu xurquumo waxaan haysa abaar kulul deegaanka Tawfiiq waa wadan tiro badan oo 50 kiilo oo mitir loo socdo oo dadkii cunno u raadsaday dunyadii baahi intay baabiisay waxaan ka codsanaynaa dawladda Puntland iyo hay'adaha caalamiga oo la shaqeeya in la ka soo gaaro abaarta kulul oo wax naloo qabto. degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug ayaa ah deegaan aad u fog isla markaasina jidkeedu yahay mid aan wanaagsaneyn waxaana jiray cabashooyin kala duwan oo ka soo yariyay bulshada ku dhaqan deegaankaasi. Cabdullaahi Yare TV-ga idaacadda SBC magaalada Galkacyo.